kulan aad u ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay layskuna soo dubiriday ayaa waxa uu ka dhacay safaaradda Itoobiya ay ku leedahay magaalada Sanca ee dalkan Yemen. kulankan ayaa waxa lagu dooranayay hoggaanka cusub ee xubnaha jaaliyadda Soomaalida degta deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. ugu horeyntiina halkaasi waxa ka hadlay madaxa jaaliyadaha ee 9 qowmiyadood ee degta dalka Itoobiya Mr. Burhanu. waxa uuna ku nuuxnuuxsaday muhiimadda uu leeyahay kulankan lagu dooranayo xubnaha cusub ee jaaliyadda ay yeelanayso. ብዙ ስራዎችን መስራት እንችላለን። እናንተን በጣም ጠቃሚ የሚባሉትን የልማት ስትራቴጂዎች መንግስት ቀይሰዋል። በክልላችሁ ሄዳችሁ ኢንቨስት እንድታደርጉ ኤምባሲው ማንኛውም ነገር ለማመቻቸት ፈቃደኛ ነው። كل كيني أرض وذكر ضايع بني وحاجة تويني سفارته تعاون بكسبنا إزاء لا تكتان كل كينا ما نقول بسبب ستان إلى حقيقتان هكذا والحاجة أنا بالفرج وقال إلى أن أحسنه سيما تقانا كل كوني وشاقيا حرر الإسلامي بالعمل. intaa kadib ayaa waxaa la gudagalay doorashada hoggaanka xubnaha jaaliyadda Soomaalida degta dalka Itoobiya oo ay ka kooban yihiin 6 xubnood. dadkani la doortay ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Mr. Cabdurrahmaan Xasan, gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Idil Bashiir, xoghaynta jaaliyadda Maxamed Saciid Caaqil, afhayeenka jaaliyadda Khadar Maxamuud, madaxa maaliyadda ee jaaliyadda Cabdullaahi Caaqil Xasan, madaxa arrimaha bulshada ee jaaliyadda Dr. Mukhtaar Maxamed. doorashada kadib ayaa waxaa meesha ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda cusub ee Soomaalida degta dalka Itoobiya Mr. Cabdurrahmaan Xasan. waxyaabaha idin ballanqaadayna waxaa ka mid ah haddii aad la garab istaagtaan weeyaan Soomaalida waxaa ku maamulay jirta gabdhood wax ku gooyaan haddii aad garabka naga istaagtaan meeshan waxaad ogaataan xabashiin in iska haytaa ogaada idinka iska leh xabashiin kan iska malaha idinka ayaa iska leh waad u simantihiin 9 qowmiyadood ee aad calankooda aragtaan yaa ka mid tihiin calanka koowaad oo number 1 ka ah waa calankeeni weeyaan waxaad u jeedaan calamaantii kale ku daba taxan yihiin oo aan ku midoobay oo keliya calanka federaalka ee looga dhinaca waxaad qaadanaysaan qaxooti ma tiidin باسبور بتقابليسان شرعك كسو جوجيسان بلا هذا بتوصل كل سفارة وقت كسرت كذا ما يسمعيسان محلي أقفك جوهم ربع الشرع سوتن كيف سيدك جوا هذا الربع جوهم هرجيس الوقاطة مقص الوقاطة ما بوجود هايو وحامي شيء كذا جوهم من الأمر كنسين هاينو أتكلم كذا جيجا قبلها قولي محلي أدير ربع أديسوا قف كستمية شراب ما أنت والجمعة بريد الصبت ده قف كيلو ربع كيلو هذا تجيبوا كده كيا ثانا يدي بلغان بينما سفارة وسفارة دي وطن كيلو وطن كحنا كاس لويان قوميات ستة لويان حرشين بقوي ستة حرشين ما يستطيع. haddaba marka la isku soo xoriyo hoggaankan cusub ee jaaliyadda la doortay ayaa dad badani oo ka soo jeeda dawladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ay ka warsugayaan isla mar ahaantana il gaar ah ay ku eegayaan wax qabadka hoggaankan cusub.